ehel iyo asxaab ayaa ku soo dhoweeyey degmada Guriceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya shantan wiil oo dhowaan afduuba loogu geystay tuulooyin hoos dhaca degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan xilli ay ku sii jeedeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana kolkii hore ay ka baxeen magaalada Guriceel muddo ka badan hal asbuuc ayay ku afduubnaayeen deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana loo haystay sida ay sheegeen magta marxuuma ku dhintay howlgallo ay sameynayeen ciidamo uu hogaaminayo Cabdifataax Fooneeye oo dowladda ka amar qaata kuwaasi oo ka sameynayay deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan wiilasha muddada ku afduubnaa deegaankaasi ayaa markii ay soo gaareen degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud warbaahinta la hadlay waxaana ay ka warbixiyeen xaaladaha ay soo mareen iyo sidoo kale qaabkii ay ula dhaqmeen maleeshiyaadka afduubtay kamid ahaa dhalinyaradii laga afduubtay deegaan u dhaxeeyda meelaha goobo si nolosha warar dhuuma leh waxaan ka soo jeednay deegaanka Galgaduud magaalada Guriceel dhalinyaradeenna hadda is agtaagan shanta ah waxaan afduubtay qabiil Soomaaliyeed oo daris la ah familka aan ka soo jeedno waxaana laga qabtay deegaanka sadda tilmaamnay muddo waana la sii wada kulay xaaladeenuna ay ahayd ma dhimasha leedin wada mise nolol leedin wadaan kala ogeyn cabaar markii la sii waday meel waxaana la geeyay loogu sheegay deegaan magaciisa lagu sheegay Laan 7 ilaa markaas aanan aqoon macnaha loo wado iyo meesha aan u socono wax yar kadib waxaan u imaadeen rag odayaal ah waxay noo sheegeen in laga rabo annaga lacag nin ciidamada dawladda Soomaaliya ay dileen lacagtaasna ay sheegeen qabiilkeena laga rabo taasoo nolol muuqatay madax furasho maadaama aan annagu ahayn dadkii wax dilay sidoo kalena qabiilkeena nin matalayo oo markaasna uusan wax dilkaasi geysan laakiin wax geystay ahayd ciidamada dawladda Soomaaliya ay leedahay intaas wixii nooga dambeeyay waxaana loo sheegay kaliya inaan ku bixi karno lacagtaas oo qabiilkeenu shubo aysan ahayn waliba askarigu maadaama dawladda Soomaaliya lahayd dawladda in laga rabee naloo sheegay qabiilkeena inuu shubo torture physical ma jirin oo jirdil haday kor oo naloo geystay ma jirin laakiin jirdil nafsiyan ha jiray oo markaas waa dareemi kartaa nin colah oo maaragtay hadii uu wuxuu rabo waayo ee cadda inuu ku dilaayo markuu gacan kugu haayo waa dareemi kartaa nabadoon cali maxamuud cali dheeh iyo sidoo kale nabadoon maxamuud cabdulle warsame ragobey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin maleeshiyaadka qof ay dileen ama ay dhibaateeyeen balse lacag madax furasho ay bixiyeen sidaas awgeedna loo soo daayay waxaana ay sheegeen odayaasha in xeer ay tahay lacagta ay bixiyeen inuu ninkaasu dawlad gacanteed ku dhintay xaq Matabaan ku dhintay dad loo xirxiray dabagal lagu sameeyay meesha uu jira ay ogaayeen waxaa caddaatay marka inay nimankan shanta iyo baabuurka baraadada u afduubteen run ahaanta waxay ka fiican tahay hebelaad naga disheen annaguna hebel iyo hebelaan dilnay oo mowd loogu aaro ay ka fiican tahay wuxuu ku dhintay niman tuuta qaba oo ciidana oo reer Matabaan jooga ciidankuna haddii saad og tihiin waa ciidan dawladeed dawladduna wixii ku dhinta in ayaga lagala macaamilay ahayd qaladka dhacayaa wuxuu ahaa in maaragtay arrinkaa asaga ah loo afduubo dad beel ah arrinkaasu annaga buu nala qaldan yahay waxaasi ninkaas annaga magtiisu inaan qabno ama uu annaga nugu dhintay haba yaraatee uma naqaan annaguna inaan naftigii ku badbaadino waa la garannay taasuna waxaad moodaa in laysdilo inay ka fiican tahay ha ahaatee waxaa ku jirta ayadana daba taala intii reer guura waa xeer maxamed cabduuli tooxow dalsan TV Dhuusamareeb